in madaxda Soomaalida ay yihiin inay yihiin house negro ama slave inay yihiin ama dad la haystayaala in ay yihiin turjumaano ama dad translators oo aan ku fadhiyin xukun in ay yihiin dad aan matali karin qadiyada Soomaalida iyo jiritaankeeda in ay yihiin dad aan waxna diidi karin waxna yeeli karin bal ay yihiin dad Ethiopia waxay u soo yeedhiso markasta ku qanco oo wana lafta maanta uu weeraray ay yihiin kuwii shalay u dagaalamay ka dhiidhiyay sidoo kalena baarlamaankii 1993 boqolkiiba 99 horgay Ethiopia in shacabka Soomaaliyeed aysan diyaar u ahayn inay ka mid noqdaan Ethiopia dhinaca kalena ay diyaar u yihiin in Ethiopia ay ka go'aan halgankii iyo qadiyada madaxweynaha ka sheekeynay ku naaloonayeen ay yihiin kooxdii ka shaqaysay muddada dheer 35 sano dagaal ku jirtay Soomaalina ay dhiibaysay inuu haddana dhinaca kale weerar halka in kastoo mistake ahayd maamulada Soomaalida oo si gaar ah dadku isha ugu fiiqayaan Puntland iyo Somaliland in xilligii xumaa ee EPRF iyo TPLF ay talinayeen inay ka ganacsadeen dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee dawladda deegaanka dhibaatana ay u geysteen maqal arag suban daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan Manrac TV boggaga aynu ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka waxaan ku eegaynaa muuqaalkan waraysigii xasaasiga ahaa ee uu bixiyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar iyo waliba waxyaabihii uu xambaarsanaa maxaa xilligan ku soo beegay waraysigan maxaase laga fahmay siyaasadda dawladda deegaanka Soomaalida halka ay ku socoto iyo waliba mustaqbalkeeda waxa uu noqon doono waxa barnaamijka qayb igala ah Sayid Faahiye oo dhinaca falanqaynta igala qayb qaadanaya sayidow soo dhawow waraysiga uu bixiyay madaxweynaha dawladda deegaanka mudane Mustafa Cagjar marka ugu horeysaba hadii aynu eegno maxaa la dhihi karaa xilligan waa uu ku soo beegay aad iyo aad ayaad u maasan tahay Maslax Abubakar Xaaji madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waraysi uu siiyay wariyaha madaxtooyada laga rasiiday telefishinka dawladda ayaa maalintii shalay ahayd warbaahinta soo galay waraysiga madaxweynaha waxa uu kaga hadlay arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo waxbarashada afar qodob ayaana ugu muhiimsanayd waraysiga madaxweynaha qodobka koobaad oo uu kaga hadlay arrimaha wada tashiga qaranka Ethiopia iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia xilligan iyo qodobka labaad oo uu kaga hadlay ururka ONLF oo uu si weyn ugu dhaliilay inaysan matalin dad shacab iyo qabiil iyo deegaan midna uuna sheegay in ay yihiin koox isxilqaamay balse isxilqaankooda uu soo gabagaboobay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu si gaar ah u beegsaday ama si gaar ah hadalkiisa ugu cadeeyay in madaxda Soomaalida ay xilligan durbaanka u tumaysa in shacabka dawladda deegaanka Soomaalidu ay u hanqal taagaan arrimaha isdiidan ee ka dhex taagan geeska Afrika heshiisyada Somaliland iyo Ethiopia dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirkooda xumaaday Masar oo Soomaaliya gudaheeda soo galayso ciidamada la qorahayo in deegaanka Soomaalida jamhad laga sameeyo isagoo arrimahaasi ka hadlayo waxa uu yiri shacabkanagu shalay dulmi ayaa loo geystay dulmigana waxa qayb ka ahaa madaxda Soomaalida iyo maamulada Soomaalida oo la shaqeynay maamulkii TPLF EPRF iyo dawladda Ethiopia si gudnimalana u iibsanay shacabka Soomaalida sidoo kale waxa uu sheegay hadal u muuqday in uu ku beegsanay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxda maanta durbaanka noo garaacaysa waa tii shalay caayisay shacabkanaga sida daran u aflagaadeynaysa sidoo kale waxa uu ka hadlay madaxweynuhu in shacabka Soomaalidu ayagu ay leeyihiin go'aanka oo hadii Ethiopia ay soo celiso qorshe dambe oo ay ku gumaadayso ama ku bahdilayso in ay leeyihiin kartidii iyo awoodii ay shalay Ethiopia ku diideen dhinaca kale oo qaybta u dambaysa wuxuu kaga hadlay waxbarashada dalka Ethiopia ardada dhacday iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka Ethiopia ka taagan ee dhinaca waxbarashada marka afarta qodob ayuu waraysiga madaxweynaha ku saabsanaa Maslaxow dabcan waxa muuqatay in aftahannimo dheeraad ah ay ka muuqatay madaxweyne Mustafa Cagjar oo dad badan ay u arkayeen nin aad u afgaaban oo saxaafadda ka dhuunta waraysigan dadku maxay u arkaan markaad fiiriso dadka isaga taageersan iyo dadka ka soo horjeedaba siyaasad ahaan horta Maslaxow madaxweynuhu inta badan dadka warbaahinta ku badan ma aha inkastoo xagga qoraalku uu ku badan yahay laakiin xagga hadalka kuma badnayn marka uu hadlana waxaad moodaa inuu aruursado dhibco dhinaca siyaasadda ah shalay waxa uu si waadix uga hadlay xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida xilligan uu ku sugan yahay waxa uu sheegay shacabka Soomaalida halgankii ay soo mareen iyo sida Ethiopia ula dagaalameen waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay Ethiopia u geysatay bahdil gumaad barakicin iyo ihaaneyn oo ay adag tahay in madaxweyne Soomaaliya oo Ethiopia xilka hayo ku dhiirado ayuu ku dhiiraday madaxweynuhu sidoo kale madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay oo khad cas ka dhigay in shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ay yihiin kuwa Soomaalinimadooda aan gorgortan ka galaynin aysan jirin cid ay u daba fadhiyaan in ay Soomaali noqdaan oo hadalkaasi uu sii raaciyay kuwa durbaanka colaadeed garaacahay haddii aan ka diidno macnaheedu ma aha
in soomaalinimada aan iyaga u daba fadhino cid kasta annaga ka soomaalisan dhaqan ahaan jiritaan ahaan halgan ahaan iyo qadiyad ahaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu caddeeyey oo dubka ka qaaday in madaxda Soomaalida maamulada Soomaalida oo si gaar ah dadku isha ugu fiiqayaan Puntland iyo Somaliland in xilligii xumaa ee EPRF iyo TPLF ay talinayeen inay ka ganacsadeen dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka dhibaatana ay u geysteen sidoo kale madaxweynuhu sida lagu yaqaanayba wuxuu weerar qaawan oo gabashalayn ku qaaday ururka ONLF oo diiday in uu ka qayb galo shirka wada tashiga qaranka Ethiopia iyagoo sheegay in hanaanka commissionka uu wuxuu wado ay sanayn mid sax balse Mustafa wuxuu yiri ONLF waa laba garabkan shirka diidayna ma matalaan deegaan qabiil qoys iyo degmo iyo gobol laakiin waxaan rabaa nuxurka waraysiga iyo sababta waraysiga madaxweynaha uu xilligan ugu soo aadiyay in aan dadka Soomaalida fahamsiiyo waxa jiray dood ka dhacday BBC laanta afka Soomaaliga jamcada aynu soo dhaafnay oo ay ka qayb galeen Cadaan Hirmooge afhayeenka ONLF iyo sidoo kale Cabdiqaadir Rashiid wasiirka warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida kaas oo 10 dhibcood iyo eber ay ku kala baxeen oo Cadaan uu kaga adkaaday Cabdiqaadir Rashiid dhinaca kalena Cadaan uu ka sheegay halkaasi dhibaatooyinka haysta shacabka dawladda deegaanka Soomaalida in madaxda Soomaalida ay yihiin inay yihiin house negro ama slave inay yihiin ama dad la haystayaala in ay yihiin turjumaano ama dad translators oo aan ku fadhiyin xukun in ay yihiin dad aan matali karin qadiyada Soomaalida iyo jiritaankeeda in ay yihiin dad aan waxna diidi karin waxna yeeli karin bal ay yihiin dad Ethiopia waxay u soo yeedhiso markasta ku qanco arintaasi ayuu madaxweynaha si gaar ah ooga xanaaqay waana ta keentay in uu wariyo u yeedho su'aalo u qoro kadibna uu dhaho ay hor fadhiiso oo i weydii sida haddaba waxa weeye laga arki karo waraysiga madaxweynaha oo wariyuhu uusan su'aal challenge ah ama waxa la yiraahdo follow up questions dadka warbaahinta bartay inuusan wariyuhu sameeyeen marka waraysigu muhiimadiisu waxay ahayd in ONLF lagu jawaabo laakiin isla jawaabtaasi waxa ka soo baxay qodobo masiiri ah oo madaxweynuhu uu ku dhiiraday oo saddex qaybood buu kaga hadlayo Ethiopia dhibaatada ay shacabka u geystay uu kaga hadlay hadii ay soo noqoto inay shacabka halgami doonaan marka uu kaga hadlay madaxda Soomaalida iyo maamul goboleedyada Soomaalida dhibaatada shacabka deegaanka ay u geysteen uu kaga hadlay dhinaca kalena uu ku cadeeyay in Soomaalinimada laga sheekeynayay ay ka bilaabato shacabka dawladda deegaanka Soomaalida iyagana ku dhamaato waya marka Sayid Fahiyow dadku waxay isweydiin karaan mustaqbalka dawladda deegaanka halka uu ku dambeyn doono ma ka hadlay madaxweynaha sida Tigray oo kale waad aragtay xitaa calanka Ethiopia heer ay diidaan ayay gaareen gobolka Oromia waxa laga diidan yahay dawladnimadii Ethiopia gobolo kale oo gobolka Amxaarada uu kamid yahayna xaaladiisa waan la soconaa iyo dagaalada socda muxuu ka yiri hadii arintan uu soo hadal qaaday horta siyaasadda guud ee Ethiopia markuu ka hadlayay dulmar ayuu ku sameeyay deegaanka Soomaalida iyo mustaqbalkiisa markuu hadlayay wuxuu yiri shalay waxaan soo diidnay dulmi dhibaato iyo tacaddi برهنا وحن ديارنا هذا يصون نقطين عن مركلة شعب كنا جسيد اللي حرين لقله إن كستون مدحوينه هالك مستق وسمييه أو أنا لفت مانت ووري أيهن كوي شلي الدجالماي كدجالماي كديدي سيدو كرنا برلمان كي 1993 بقول كي بسجاشني يسجل هرجي إثيوبيا إن شعب كصوماليات أي سن دياره هاي كم من نقدان إثيوبيا لنا كرنا أي ديارو يهن إن إثيوبيا يكجوان هالجن كي قديدو مدحوينه كشكل كنا الله هين أيهن كوحدي كشقيسay mudada dheer 35 sano dagaal ku jirta Soomaaliya ay dhibays inuu hadana dhinac kala war halka in kasto mistag ahayd hadana madaxweynuhu qodob ayuu sheegay oo ah sida shacabka Kenyaanka ay Kenya uga tirsan yihiin wasiirro u leeyihiin ayaan anaguna rabnaa Ethiopia uga tirsanaano oo xaquuq kaga raasano hadii Ethiopia xaquuqdaas ay noo diido dagaal nagu qaadana waxaan diyaar u nahay sidaan shalay oo la dagaal inaan oo la dagaalano halka marka waxaad moodaa madaxweynuhu si guud u jaangooyay mustaqbalka shacabka dawladda deegaanka Soomaalida in kasto ay jirto qadiyad madaxweynaha maamulkiisa oo ONLF iyo qof kasto Soomaaliyeed deegaankaasi kamidaba uu aaminsan yahay oo ay shacabka Soomaaliyeed ay mar un ka xoroobaan Ethiopia inteeda kale marka oo ma hadli kara sida madaxda Tigreega oo waa nin ka tirsan nidaamka xisbiga BB Abiy Ahmed uu hogaamiyo oo ma hadli karo sida madaxda Oromada oo Oromia waxa maanta xukuntada Oromadii iyagu say rabaan yeelahayo laakiin waxaad moodaa hadana qadiyad ahaan inuu madaxweynuhu si gaar ah shacabka Soomaalida ee deegaanka uu ku matalay Ethiopia oo kaga hadlay Soomaalida oo kaga hadlay Durbaankan la garaacay mandaqada Geeska Afrikana uu si guud uga hadlay inkasto ay jiraan dhaliilo fara badan oo ku gadaaman waraysiga madaxweynaha maamulkiisa iyo sidoo kale isbedelkii 2018 dadku waxay filayeen iyo waxa hadda dhacayoon ahayn wax isu dhigmo oo shacabku ay jiraan su'aalo fara badan
oo ay isweydiinayaan haddana madaxweynuhu hadalkiisa waxa uu ahaa hadal xilligiisana ku soo aaday inkastoo uu ahaa jawaab ku socotay ONLF ONLF-ta marka laba garab inay u kala jaban yihiin ayuu sheegay gaar ahaan garabka diiday in wada hadalladan uu ka qayb galo inuusan matelin dad iyo deegaanba oo dowlad deegaanka labada garabe ONLF ay u qaybsan yihiin dad badan oo fahansaneen oo waraysigan daawanaya jira maxay kala yihiin labadaas garab aad baad u mahadsan tahay maslaxo waa su'aal isweydiin mudan ONLF markii ay soo xarootay 2018 Ethiopia ay heshiis la gashay dowladda Eritrea saldhig u ahayd Ethiopia intay heshiis la gashay ay Abiy Ahmed iyo heshiis ONLF gudaha ay soo gashay la imaaday muddana ay joogtay bataatanba waxaa istaagay oo hakad galay istiraatiijiyadii heshiiskii ONLF iyo dowladda Ethiopia ay soo wada galeen waxaana meesha ka baxay nidaamkii lagu soo heshiiyay oo dhan kadib dowladda Ethiopia waxay faragelin ku dhex samaysay ONLF dhexdeeda way iska hor keentay markay iska hor keentay akhshaas ka mid ah ururka ayaa ka baxay oo banaanka ka istaagay akhshaas kalena ururkii dhexdiisa ayay ku dagaalameen kadib waxay u kala jabeen ururku koox uu hogaamiyo oo koox ay isla yihiin Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim Riyaale Xamed Xuseen Nuur nin Xasan Macalin hadda iskaga baxay oo ku biiray dowladda federaalka wasiiradeeda iyo xubno kale iyo koox kale oo ah kooxdan madaxweynaha uu shalay u jawaabay oo ah koox uu hogaaminay Cabdiraxmaan Maadey Dhiirna Cabdi Yaasiin Cabdullaahi Mukhtaar Cadaan Hiirmooge iyo sidoo kale daahir baasi daahir samuuji rag noocaas ay hogaaminayaan iyo koox kale oo ah koox ay hogaaminayaan qalbi dhagax Maxamed Shariif iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Sulb Cabdi Axmed oo iyagu doonayay inay isu soo jiidaan labadan kooxood ee fikirka ama aragtida kula qaybsamay marka ONLF shalay duurka heshiiska ku ahayd gudaha markay imaatay kala qaybsanaan baa jirto taas waxay keentay in kooxna madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka ay qayb ka noqoto wax la qaybsato waxa weeye golihii wasiirada iyo maamulada gobolada degmooyinka ay wax ka raadsadaan kooxna inay wali banaanka joogto mucaarad tahay oo dagaal ay ku jirto xukuumadda Mustafa waana kooxdu madaxweynuhu hadda u jawaabay marka kala qaybsanaanta noocaas ay ururka ONLF soo kala dhaxgashay kadib markay heshiis qaateen inkastoo shacabka dowlad deegaanka Soomaalidu ay rajo ka qabaan in kala qaybsanaantaasi ay soo gabagabowdo oo heshiis laga gaadho si mar walba loo ilaaliyo qadiyada shacabka Soomaalidu ay leeyihiin waayahay aad buu u mahadsan yahay Sayid Faahiye ayuu ahaa oo nagala qayb galayay falanqayntan Manrac TV ayaad ka daawanayseen muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo